gaalaysiinta ardayda iyo bixinta casharada isku diyaarinta qorshaha qoyska ee Family Planning Preparation ayaa ugu waaweyn dhaqamada aan la mahadin ee ka socda dugsiga Abaarso. Baadari kaniisadeed, dumar rag isku bedelay, iyo ninka khaniisiinta ugu firfircoon ayaa culayska ugu badan u xambaariyay bahda dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo oo saldhigoodu yahay magaalada Hargeysa. Christina Bowden waa macallimad laga dheegto casharada cilmiga nolosha iyo noolaha ee biology. Labadii sano ee u dambeeyay waxay ka howlgalaysay jaamacadda Barwaaqo. Marka la qeexayo shakhsiyadeeda waa qof lagu muransan yahay midka maanta lagu tirin karo lab iyo dhadig. Yaraanteedii kuma qanacsanayn dumarnimadeeda, taasoo goortii ay qaangaartay dhaxal siisay inay marto qalliinka dib u bedelidda jinsiga oo xubinteeda taranka loogu sameeyay sidii ninkii. Christina Bowden oo u dhalatay dalka UK waxa la xaqiijiyay in dhowaan loo magacaabay madaxa howlgallada iyo barnaamijyada jaamacadda Barwaaqo. Waxay u ololeysaa in dadka isku jinsiga ay isku galmoodaan iyadoo xubin ka ah kooxda caafimaadka ee jinsigooda bedelay oo loo yaqaan THEI. Dadka xogogaalka ahi waxay u arkaan qofka ugu halista badan ajaanibta maamusha jaamacadda Barwaaqo oo badankoodu u baxsaday dalka Itoobiya. Waxaase la xaqiijiyay inaysan iyadu ka bixin Somaliland. War-saxaafadeed ka soo baxay dugsiga Abaarso ayaa u muuqday mana sheegasho maaliyadeed iyo inay abaal aan la gudi karin ay u galeen Somaliland. Waxay sheegeen inay ixtiraamaan diinta Islaamka inkastoo ay difaaceen baadariga gudoomiyaha ka ah jaamacadda Barwaaqo. Waxayna yiraahdeen muddo 12 sano ah shabakadda Abaarso waxay siisay fursado waxbarasho oo heer caalami ah ardayda Somaliland. Hogaamiyayaasha iyo macallimiinta dugsigeenu waxay ka caawiyeen dhalinyarada aqoon-yahanka ee reer Somaliland inay helaan deeqo waxbarasho oo ka badan 37 milyan si ay dibadda wax ugu soo bartaan. Muddadaas oo dhan waxa aan shaqaalaysiinay macallimiin ajaanib ah oo si joogto ah u muujiyay ixtiraamka dhaqanka iyo diinta Islaamka. Waxaan ku kalsoonahay in gudoomiye Joy Isa aysan ku xadgudbin qandaraaskeedii ama kaayagii xeerka anshaxa. Waxay halkan u joogtaa oo kaliya inay caawiso ardayda Somaliland si ay u helaan waxbarasho iyo fursado cajiib ah. Waalidiinta carruurtoodu dhigato dugsiga Abaarso oo shir saxaafadeed ku qabtay Hargeysa ayaa difaacay waxa la baro ardaydooda iyagoo beeniyay in la gaalaysiiyay. Waxa kale oo ay sheegeen inay maxkamadda la tiigsanayaan Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ay ku eedeeyeen inuu ku ciyaaray sumcadda gabdhahooda. Gabar ka mid ah ardayda Abaarso oo ka hadashay shirka jaraa'id ee waalidiinta ayaa ku dooday inaan looga walwalin inay sahal uga ridoobaan dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka oo lagu soo barbaariyay. Shirka culimada Ansaarul Sunna oo ka socda magaalada Hargeysa ayaa cod hoose loogu soo hadal qaaday in laga dhiidhiyo dhawaqa soo baxaya ee gaalaysiinta ardayda Abaarso. Sheikh Almis Muj Yaxye Xaaji Ibraahim oo ka mid ah culimada ugu waaweyn Somaliland ayaa khudbad uu ka jeediyay shirka culimada waxa uu ku sheegay in laga run sheego tawxiidka ku dul xardhan calanka Somaliland laguna dhaqmo diinta Islaamka iyadoo si daacadnimo leh loo difaacayo. Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo lug dhaawac ka ah ayaan wax dhaymo ah ku helin xabsiga Mandheera oo habeenkii shanaad uu hoyanayo. Eheladiisa ayaa sheegay in loo diiday dhugashadooda, waxaana dhowr jeer ay ciidamadu soo celiyeen dad ay hilbowdaag yihiin oo doonayay inay hubiyaan in laga wareejiyay xabsiga Mandheera iyo in kale.